daawadayaal haddaan qaldanahay bal waad ii sheegi doontaa filimkan bilow ilaa ay dhamaad qisadaas ayuu leeyahay commentiga igu soo qor haddaad wax ka fahantaan waa natin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا بوهيرو أحمر لبعض اللي صلابتي كنال كذا يقفل سنة سوا بوهيرو مقعيقون وبوهيرو هدي أد يوتيوب كي يكون سبتاعي لايك شير سبسكرايب كمبليل كان دعسي وحاكا لو أصحابتي ذكر على الجلين يا حلي ماشان أيام فديي أنا بو رأكشن بحنا بلسه aad nagu xanaaqsanaa reaction-ka xalay aan bixinayo kadibna mid kaanaga farxadda ah aan marba idinka qoslaysiyo balse waa xanaaqsanaa arrin jirta markaas ayaan aad aga xanaaqay aga carooday social media isla dhaxmarayay taasna waa idinka raali gelinayaa marka caawa haddaba maxaan wadaa film yar ee short film ah ee gabar ay soo sameysaan caawa rabaa inaan reaction ka bixiyo gabadhi soo sameysay kulay magaceeda waa maqli doonaa muuqaalkan waxaa duubay Astaan TV haddaba Astaan TV waxaa lagu yaqaanaa muuqaalo waalan ee quality ah bal muuqaalkan caawa ka hadli doono ugu horreyn filimka magaciisa waxaa la yiraahdaa Caanshaq Digaag kulley magaca filimka laga dhigay title-kaas ahaan aniga igama laakiin kama helin title film dhan marka film lagu magacaabayo in Caanshaq Digaag la yiraahdo igama gadmin haddaba filimkan aan reaction-ka ka bixin doono adinkana igala bixiya wixii taladiina aan hadhow commentigeeda igu soo qori doontaan ila dhageysta ila arka inoo bilaabo muuqaalka ugu horreyn filimkii ayaa noo bilowday waxaa lagu soo qoray day 1 ama maalintii koowaad hadba saad u fahanto wuxuu ka bilownayaa filimka already gabadhii ayadoo jiifta sariir ama hurdaysa sida marka qof habeen ay u tahay oo kale haddaba director-ka filimkan director gareeyay magaciisa kolay ma aqaano script-iga dambe filimku ku dhamaanayo ku qoran yahay dib ayaan ka akhrin doonaa filimkan aniga qaybihiisa dambe oo dhan magaceeda ma fiirinin haddaba sida la og yahay marka filimka micnihiisu uu yahay bilowgaba ama dhexdhexaad meeshu raba ha noqdo qofka uu matalay inay habeen u tahay oo jiifto waxaa muhiim ah in guriga uu ku jiro nalkiisa diim ama uu yaraado nalka iftiinkiisa ama mugdi uu ahaadaba bal hadda gabadha guriga ay jiifto ma la dhihi karaa jilinkeeda macnaha loola jeeday halka ay hadda jiifto qaabkay tahay miskeeni kartaa aniga ahaanteeda kulley maya because meeshay joogto waa guri iftiinkiisa zaa'id yahay maalin oo kale matalaya ayna waxay hugsatay weyn waxay matalaysaa inay jiifto intaan waxaa la rabay director-ka filkan director gareeyay in uu meeshaas mugdi ahaada filimka shootka markuu bilaabanayo kulley aniga kama helin adinka waxaad ka qabtaan ra'yigiina aad ku soo qori doontaan okay haddaba qaabkay gabadha u jilaysa halkii ayay jiiftaa tusaale ahaan way soo kacday hurdada qofka markuu soo kaco ama taleefonkaaga ku agyaal oo kale ayaa dabcan message ama wax wicitaan oo kale ama message oo kale soo galay wuu dhawaaqay marka waad jiiftay attention-kaaga sidaan uu ahaa taleefonkii aad dhawaaqay adan indhahaana kala qaadin attention ama naxdina aan muujinin taleefonkii uu dhawaaqayay far kale adoon dhaqaajinin gacanta kaliya isla markiiba saan soo dhahdo ma dhihi kartid kolay qaybtaas qaabkay u jileen laftirkeeda waan diidanahay kama helin oo ma ahan sida saxda ee filimaanta loo sameeyo midna xasuusnaada asxaabteyda taageerahayga aniga waxaan professional ku ahay ahaanteeda lagu yaqaana waxaan malaynayaa 2012 kii
ayaan bilaabay inaan filmaan dhigo actor ayaan ahay markan muuqaalada reactionka caadiga bixinaya iyo markaan filim ka hadlayo waa ii kala duwan tahay waxaan khibrad fiican aad ugu leeyahay filimaanta because ana actor ah filim walbo qaabku u bilaabanay iyo meesha looga rabay inuu u bilowdo halku ka qaldan yahay waan fahmi karaa okay haddaba filimkan gabadhii markii ay soo naxaysay oo kale ani ahaanteeda waxaan ka dhigi lahaa haddii aan directorka filimkan ahay markay hurdada ka soo kaxayso kow guriga mugdi aan ka dhigi lahaa inay guriga jiifto dhawaaqa markay hurdada soo kacayso kaleeto labo way jijimacsan lahayd taleefanka dhawaaqis markay maqasho ama soo nixi lahayd taleefanka markay soo qaada nalka iftiinka taleefanka markay saas screenkiisa u shido qolkii weli mugdi ah wajigeeda ayaa laga dhex arki lahaa iftiinka kaamirada ayadoo iftiinka taleefanku uu qabtay markaa kadib ayay nalka shidan lahayd laakiin qaabka filimkan loo sameeyba guriga waa iska iftiin meeshoo dhan waa iftiin habeen umaba ekaba haddaba gabadhi markay soo kacday aan ku soconee taleefonkii soo qaaday okay maxaa ku xiga okay gabadha waxay sameynaysaa way soo kacday isla markii taleefoonka ay soo qaadatay Instagram-kay gashay soo dhawow walaal ayaa loo soo qoray okay maxay tiri marka isla markiiba soo dhawow walaal la yiri dabcan waxa loola jeedaa qof cusub ayay baranaysay markii saa u soo qaaday taleefonkeeda Instagram-ka qof ayaa wuxuu soo qoray soo dhawow walaal isla markii maysa weydiinan yaa tahay waan dhawahay waa qof markaad isku cusubtihiin waa inaad weydiisaa isla markii sida qof ay hore u taqaanay oo kale isla sariirtaa weli la joogaa soo dhawow walaal u soo qoray markaas waxay ugu jawaabtay Sumeeya Ismaaciil waan dhawahay cadde okay gabadhani ninkan hore uma aqoonin farsaambul waa qaabka filimka qisadiisa loo qoro loo jilayo ayadoo iska jiifto taleefankeeda soo dhawaaqay soo dhawow walaal loo qoray isla markii waxay u qortay Sumeeya Ismaaciil waa Sumeeya Ismaaciil laga rabay inay dhacdo qoraalkaas way qaladay laakiin Sumeeya Ismaaciil waa dhawahay cadde ayay ka bilowday already ninkii nin ay xiriir ka dhaxeeyeen oo kale u hadashay maxna filimka loo jilaayeen waxay tahay ninka hadda isbaran weeyaan bay isku cusubiyeen yaa tahay aboowe qofkee tahay qof aad soo dhawaad ku dhawaad weydiinaysa waa dhawaay walaal qofkee tahay qof ma tahay inaad dhahdo attention ma laha attention-kii oo dhan Sumeeya Ismaaciil magaceeda la soo boday waa dhawaay walaal ay dhahday igama gadna kulay aniga filimkan ninka director gareeyay kulay ma aqaano balse waxaan leeyahay qaabka wax u director gareysay looma sameeyo filimaanta waa diiday aniga kan okay asaga wuxuu soo qoray marka gabadha magacaygu waa Abdallah hadda la baranaya u jeedin Soomaalian magacaygu waa Abdallah Hargeysa ayaan deganahay okay maxay ku jawaabtay isla markiiba waxay ku jawaabtay Sumeeya Ismaaciil anne Sumeeya fiiriya qoraalkiisu uu qaldan yahay Sumeeya Ismaaciil ay dhahday anne Sumeeya Nairobi ayaan joogaa okay hadda shaqo ay ku jiraa WhatsApp-ka WhatsApp-ka kaaga ii sheeg la yiri okay qoraalkay qaldayaan qaabkan u aqrinay qoraalka qaabkii qorayna qaldan hadda leeba macnaha taleefonka message looga soo qoray soo dhawow walaal ayadaa lagu yiri waa dhawaay cadday ka bilowday okay shaqan ku jira WhatsApp-kaaga ii sheeg la yiri saaxiibtay wad ii fikirtay dhac status-keeda heesaaba la soo saaray macnaha jaceelaba galaa laga wadaa isla sariirta korkeeda la isku bartay isla sariirta korkeeda jaceyl ku galay okay attention-kaaga qofka bini'aadamka markuu filimka fiirsanaya filimka markaas u bilowdo waxaan rabaa 20 second ugu horeyso filimka micnihiisa inuu attention-kaaga soo jiito oo ku soo jeediyo ilaa iyo hadda filimkan attention uu soo jeediyo iska daayay waxaan maskaxda dadka ka dhaadhicaynin
ayuu director-kan kale gabadhan waa loo dhiibay saan u malaynaya filinka balse director-ka filinkan jilay waxaa maskaxda galaynin inuu rabaa inuu dadka ka gado sidaad ogtihiinna astaan oo aniga aad u aqaano muuqaaladii sameeyaan ayaa magacaabatay in muuqaalkan ay duubeen oo filinka leeyihiin astaan waxaa lagu yaqaanaa musalsalo aad u qiimo badan iyo muuqaalo aad u qiimo badan saan ogahay haddaba kan astaan laguma yaqaano noocaan ku leey isla markii gabadhii statuskeedii ayaa screenshot laga soo qaaday screenka la soo saaray heesta background ka dhawaaqaysan ayadoo qoraal ahaan loo saaray okay okay hees ayaa loo saaray dhamaan waxay inta dhiigga qaada adiga dhex jiifo statuskeedana saasa ugu qoran screenshot ayaa la soo saaray screenka korkiisa the same time isla lambarkii wiilkii markiiaba la siiyay oo isma yaqaanaan maxay ku qorantay my love goormay jeclaatay goormee la isbartay day 1 day 2 day 3 ma jirto sariirta korkeeda la isku bartay isla sariirta korkeeda عدي هبل أي كل هذا إسلا سريرت كور كذا ممكن ما يلوف يبغى قرطة attention أوكي قف مركز جعلاني سو كله for example جبر أما ويل با قف هذا إسكبرتين social media إلا ما يقام مالنا هذا اللي جل عشان نسوي كرتان وقوري ما يقام مالنا قاعدين كرتان إن عدي يا ما يلوف إسدادان ودي وبعن تاعي إن الإسفهم بس ساعات ورئيسة وإن الإسحال ورئيسة قف كويا قف كلمة ويديا سريرت كور كذا اللي لفرديا ستيل waxaa la isla gaaray my love inay qorato hal daqiiqo gudaheed ay ku baratay oo ku bartay my love diyaar oo la jecel yahay way ka fikiraysaa status-ka soo qoranaysaa haddaba director-ka filimkan qoraa aniga haysta gabadhan waa loo dhiibaa marwalba saa aniga dukle ogaasaan samee un baa la dhahaa ninka filimkan director gareey waxaan dhihi lahaa saaxiibkay markaad filim duubayso ogow bulsho kugu xiran jirta ama Soomaali oo dhan ayaa astaan ku xiran in la fiirsanayo ku xisaabtan filimka micnaha ku fadhiyo filimka la duubo micnaha loo duubo waxay tahay in laga helo wax laga fahmo ama laga faa'iido ilaa hadda waxaan ka fahmayn ma lahan waxaan maskaxda galaynin baan u jeednaa in dadka la hor keenay xayale hal fadhi gudaheed sariirta korkeeda ah wixii 4 maalin 5 maalin week la sameyn lahaa hal daqiiq gudaheed lagu ma sameyn karo barashada waxay u baahan tahay time jacaylkan wuxuu u baahan yahay time kadib markay dadka isfahmaan ay sheekooyin dhex mari karaan ku socda okay waxa la soo qoray day 2 maalinkii labaad la soo qoray okay maalinkii labaad maxaan sugeynaa shaqadii hal week lagu qaban lahaa hal daqiiqo korkeeda sariirta lagu qabtay saad u jeedeen day 2 maxaa la qaban doonaa marka shaqadii 2 bilood la qaban lahaa nooga dhigi doonaa malaynaa aan aragno okay day 2 wuxuu ku bilowday gabadhii oo saan meel u socoto oo telefoon ku hadlayso dabcan waxa uu la jeedaa director-ka ninkii la hadlaysaa codka meeshan filimka wax laga maqla maalin marka haddaba filimka markuu saan oo kale yahay ee codka uu yar yahay og tahay hadalaha qofka translator loo sameeyaa marka qofka hadlay inuu hoos ku soo qarmo si qofkaas hadalkiisa daana la maqlayn telefoonka translator aan loo fahmo macnaha ka hadlaya qofka wax translator ma lahan wax soo qormaayo ma lahan laakiin waxa ku xigan arkeena marka haddaba director iyo ninkii editing-ka sameeyay dabcan saad kulay ku taashateen ma ooyi gabadha codkeeda waxaa loo baahnaa aan la maqlaynin inuu translator ahaado ee uu soo qormo siba hadda aniga YouTube-kayga hadda dib u raacdo filimaanta aniga aan sameeyo iyadoo waliba codka la maqlayo ayaan aniga English ku fasiraa filimka markaan hadlayo Soomaaliyan ku sameynaa jilitaanku af Soomaali balse translator English ayuu leeyahay filimaanteeda shortka ee kanaalkayga ku jiro hadda dib u raacdo arki kartaa ugu yaraan filimkan marka waxa laga rabay maadaama gabadha codkeeda uu yar yahay af Soomaali hadduu rabo noqdo balse translator in loo sameeyo inta ma dhicin marka lama sameynin haddaba maxaa ku xiga marka isla status-keedii qofka bini'aadanka ah
waxaa la rabaa gabadhan statuskeeda muhiim ma aha mar walba in la soo saaro screenka waxaa loola jeedaa statuskeeda ay mar walba fiirisaa statuska micnaha ku qoran hadda hadduu saan yahay ayadaa qortay micno weyn ma muujinaayo haddii status fiirinaysana kan qofka ay jeceshay markaas ayada ay ka dhigaysa inay jeceshaa la rabaa inay fiiriso okay statuskeeda ayaa dhac la soo siiyey heesta markaa ka daba yeeraysa oo qoraal ah baa meesha la soo saaray micno weyn markaa director ma dhalinayso heestii cod ahaan loo maqlo qoraal ahaan statuska gabadha ayay ku qoran tahay inaad dadka ka gado midnaha iloobin ilaa iyo hadda filinka intuu bilowday ilaa attention waxaan sugayay aniga filinkan filin socdo oo dad jecel sameynay ilaa hadda halka gabar ay hortaagan statuskeeda iyo heesta ka garab yeeraysa kaliya amaanta oo dhan u jeedaa okay waxaan u arkaa daqiiqadaha aan filinka fiirsanaya markuu ii dhamaaday in aan xanaaqi doono qofka sida caadiga ah runta marka laga hadlo because filinka aad fiirsanaysa micno dhanba kuuma sameynin waa micno laga fiirsado dhanba ma yeelan ku soco statuskii ayada qoratay fiirisay ee dhacday gabadha okay statuska ayadaas kale ayadaa qortay aniga ahaan for example haddaan status ku farxay keyga anaa qoray waa ogahay balse markaan arko qofteeda keeda oo hadalla macaan ku qoran yihiin inaan saa u fiiriyo waa dhihi karaa maadaamaan dareemaya hadalla inaan ila jeedo laakiin haddaan aniga meeshaan ku qorto ka waran boy khataraa tahay boy hebel oo anle boy lidhooyo aniga boy lidhahay la isku ammaanay statuska aan dhahay ma soconayso ma oo taas camalaa marka meesha iga muuqato ku socda day 2 le weli la taagan yahay meel cusub iyo weji cusub la igeeyaye waa muuqaalkan meeshan hadda ay joogaan ma aha day 2 inuu noqdo maalintii labaad inuu noqdo ma ahayn ee waxa la rabay maalintii saddexaad inuu noqdo haddaba directorkan weli la hadlayaa daqiiqadahan kale ma fahanti gabadha day 2 meel ay joogtay hal labisay wadatay way sameeynaysaa okay kaamirada markuu cutting gale ee mugdi ay noqoto la isbedela day 3 labis cusub iyo weji cusub iyo meel cusub loo baahan yahay weji cusub iyo labis cusub iyo meel cusub ay hadda u jeedaa balse wali day 2 la taagan yahay laga wadaa meeshaasna way qaldan tahay okay day 1 gabadha telephone ay wiilku isku barteen day 2 way la hadashay حبيبي وكجعلها على صداع ستيتاس كده هيسال soo saaray day 3 wali lama gaarin day 2 ya lagu jiraa hadana isla stiil waxa isma bedelin telefonkeeda ku mashquulsanto ay ku qosleysaa asaga ila chatting gareynaysaa ay noo wada hay if bal ila fahmo day 1 wiilka la bartay my love aa lambarkiisa lagu qoray day 2 waa la isla sheekaystay day 2 maxaa dhacay marka lambarkii dar lagu qoray day 1 my love maanta magaciisa laga bedelay my king ka lagu qoray day 2 la taagan yahay waa shaqadii hal bil in la qabto loogu tirgalay muuqaalka dheerarkiisa markii loo fiiriyo qaabka qisada u dhacayso balse hal laba maalin waxa la taagan yahay barashi iyo macallin magaciisa la bedelaayo haddaba filin qaab loo sameeyaa jirto intaad filinka sameeynin waa laga fikiraa dad baa lagu tala dirsadaa aniga director waa filimaan aniga sameeyo haddaba dib u raac YouTube-kayga waad arki doontaan filimaanteeda ay ku jiraan sidaan ma saxsana director-kii waxaan sameeyay waxaan dhihi lahaa iska soo saxsaan oo kala mar damba iisa kugu dhicin inaad sameyso day 2 wuxuu ku dhamaaday ayadoo wiilkii waxays day 3 yaa la aaday marka maalintii saddexaad okay bal maalintii saddexaad maxaa ku xiga Habibi. Hello, baby. Hadda ku soo weeraray. Baby, isku qalbiyaanay soo maaha. Waa ku xiisay. Hadda ka xiisa badan hadda waa ku soo baxaya, baby. Okay. Waa ku xiisi doonaa. Bye. day 3 wuxuu ka bilaabay jikada iyadoo ku jirto okay for example
telefoon aan soo dhaxay wiilkii soo wacay ha baby haddaan ku soo wici rabay tiri waan ku xiisay bal maqlayaa waan ku xiisay aniga ka xiis badan hadhow ayaan ku soo wacayaa oo yiri waan ku xiisi doonaa haddana hadaabe maba loo xiisanba macnaa waan ku xiisi doonaa le ka soo qabo markii uu ku dhamaado hadalka inoo wada akana wili ma aragteen adiga filim dhan oo la jilooyo maanta dhan qofka statuskiisa lagu soo sawiraayo screen-ka lagu soo saarayo heesta ka hoos yeeraysa waa la maqlaaba haddana iyadoo status ahaan u fasirin la soo saaray waa statuskeeda ayada la qoranaysa ayada la statuskeeda ku farxayso waa mid aan la yaabanahay adiga la macnaha duba adiga la daangeysa waa macnaha status dad ku farxayso qofka jecesha statuskiisa lagu farxo asoo kugu amaanayo keeda la soo sawiray heesta way yeeraysa cod ahaan qoraal ahaan ayada statuskeeda la soo sawiray ayada marka fiirno statuskeeda la ku qoslaysaa ilaa hadda ayada isku qoslayso macnaha day 3 la wali la joogaa day 3 la gaaray wiilka lambarkiisa dala magaca laga bedelay my everything lagu qoray okay daawado adiga ma ka gadmaysaa marka 3 maalin gudood qof aad jeceshahay inaad 3 magac u isticmaasho وامي igama gadno marka aniga filinkan astaan waxaan leeyahay waxa la idinku bartay kan oo kala ma ahan astaan filimaan la yaqaano macquul ah iyo muuqaal la yaqaano macquul ah lagu bartay ku dheeraan maayo aan ku socono muuqaalka maalintii afraad loo gudbay Sorry, the number you dialed does not exist. Number card garaaday maaha mid jira. Sorry, the number you dialed does not exist. Day 4 ama maalintii afraad la gaaray lambarkeedii taleefankay soo qaaday lambarkii wacday xaalay lambarka aad wacday ma aha mid jiro uu dansan yahay ama laga wado ana qayrid la istaagtay awlaab say ku bilaabeen qaldaneedba qisadii marka filimkii oo socda 4 minutes ayaa gabagabo u soo laabtayba ana uu soo dhamaaday filimka qaabku ku socdo qisadii ma socoto bilow ilaa dhamaadna filimkan wax qis u leeyahay daawadayaal hadaan qaldanahay bal wad ii sheegi doontaan filimkan bilow ilaa dhamaad qisadaas ayuu leeyahay commentiga igu soo qor hadda wax ka fahantaan waa natin marka ninka qarash ku bixiyay oo waliba astaan loogadeeda saaran tahay xoolo meesha waxaan u arkaa magaca astaan uu ka roonaa sidaan aniga jilaa ana filimaantana waa aqaan waxna waa sameeyana wax alifo san ma dhicin hada qof barbar san wax ma sameeyo okay aan ku socono Number card garaaday maaha mid jira. Sorry, the number you dialed does not exist. okay message qortay ma aqaana sababta aad telefoonka iga xiratay su'aala bilaabatay status keeda la soo sawiray mar kale maanta oo dhan status iyo ayadu baan u jeedaa wax aan u jeedo kala mixnaa loo filim hadda filim la yiraahdo ilaa hadda ma jeedo filimkan waxa lagu magacaabay page ka astaan u saaran yahay heesta meesha aad ka maqlaysaan baadana qoraal ahaan status keeda la soo sawiray
maalintii afraad weli ku sii jiraa waxaa lagu soo qoray lambarkii my everything ahaa ee my love ahay my king loo bedelaayay maanta waxaa lagu qoray uu kibray. Okay, waxaan weydiinayaa marka goormeeba kibir isla gaaraa ayadaaba macnaha tan guuxeeda ka dheereynaysaba hal daqiiqo gudaheeda in lagu bartay macnaha hadda ku soo jawaabtaa la isku jeclaadayba ay ii soo dhajisay kibir maxayba ka ogtahay ama qaabkee lagu jeclaan karaa horta iguma socotidaa laga wadaa ma fahanti. Okay, director wax kale la soo suuqtag walaalkeeyaa tahay shaqada aad qabanayso waa shaqo aan kugu taageerayo balse sidaan oo kale yaysa dhicin inaad dad mar damba qiso aad u sameyn rabto aad dadka la soo hor istaagto because waa daalo deeg shaqo dhanood qabatay bilow ilaa dhammaad micno laga fahma lahayn aan ku socono. maalintii shanaad loo gudbay ugu horreynba maalintii shanaad haddana statuskeeda screenka lagu soo sawiray xamsi caan shaqi balaayo ku soo qortay heesta shidan lagu fasiraa taasaba ku daalinaba anoo bidin aqrinina aad maqlaysaanba isla maalintii shanaad wuxuu ku dhamaaday nacaab jecel magaci leedana macnaha loo bedelay lambarka wiilka ku qornaa si laga wado wuu kibray ahayd nacaab jecel lagu qoray maalintii lixaad la gaaray haddaba maalintii lixaad abaaday gabadha wax jilaysay telefoon ay meel ku soo xiratay sida ayadoo TikTok iska duub la dhahay camal maxay sheegi rabtaa tagtay ku tabay telefoon ay meel igu soo xiratay tagtay ayaa ku tabay tagtay ayaa ku tabay duubtay ma ay tiri saas ma iguma socoto qofna anagu ma joogo telefoonka meel ku xiratay qofna anigu ma jabo u soco ugu socon waa zeytir way ka noqotay kuma jirtid xaskayga xarbad nolosha ku tahay kuma jirtid xiskeyga xarbad nolosha u tahay kaala ninkan suuraha gabdhaha kali inuuna tusamo macnaha filan ooga dhigi rabay directorna ma sheeganayaa fikradna ma sheeganayaa taagidul fiiho أرد هراء صعدوا فيها دقيقة ضاع عم في صدقيقة قصارين وأقلها هيست أمق ليسان لما يسوق قرن محاك شيء أمركنا عام سمانو maalintii toddobaad la gaaray balogay saartaa laga wadaa macnaha lambarka iska balog gareysay okay maxaad ka fahanteen marka commentiga ugu soo qor saaxiibayaalo حبتي أبو أيضا كان سجادة دم بحال دقيقة لا بكاب بلنبو حال دقيقة بقول قلاني على جودا معنا أي إنستغرام عندنا كشيء جاي كله تاسان لو فري إنستغرام كده حسور كيس على أركي لا ما هذني وأبغى فرح حسورك معنا على أركي بجاي لما بيخاني أصله قمر بقى waxba kaaga daranba Instagram kale saan furtay waa gaay kale cusub laga wadaa bal ila fahmo saantii u galayay Instagram ka sawir wiil cusub ay wiil xaaratay ku cusub wajigeeda waa la qoslo hal laakiin istaagin kula hadli kara waa loo saxdo go hostis waa la qoslo inuu hor fadhiyo camal ay
gaayga la arkay inta aan wax loo qorin ka hore sawirka bas la arkay la bilaabibo gabdhaha ay ka beensheegaysaa gabdhaha Soomaaliyeed fudeedkaas ma qabaan Mm-hmm.